بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد كلنا فصل اللحاد وكسب سن قرب وحنا قلنا حبنت الشنات حبنها هذا الكعب صومالية 10 كيستات وحين شويدين مركها سؤاشا ومحي قرب وحرف أما حرفه حاجة دبكر مقعة oo inoo suga in waxa magaca leeyahay mid ay isla garanayaan qofka hadlaya iyo kala la hadlayo ama macrifo tusaalayaal macallin iyo macallinka inan iyo inanta guri iyo guriga bali ma eeg tusaalayaashaas waxa weeye ka hore waa nakiro la islama garanayo way qodob balaha laakiin ka ku xigay ee misan macallinka qodob baa la socdo ka baa la socda marka waa la isla garanaya qofka hadlaya qofka la hadlaya waa isla garanaya inaan iyo inanta waa sidoo kale guri iyo guriga waa sidoo kale marka ta iyo ga iyo ka waxa weeye qodobadii waa tahay qodobka labaad ka hadlana wuxuu noqonayaa jinsiga qodobku wuxuu leeyahay jinsi ingiriisi gender baa loo yaqaana waxa weeye qaar waa lab yihiin kuwana waa dhadig yihiin magacyadana sidaas bay u kala raacaan qodobka labi magac labbaa raacaa ka dhadigna magac dhadig marka waxa weeye qodobadiiba midna waa lab yahay midna waa dhadig yahay ka labna wuxuu raacayaa magac lab ka dhadigna wuxuu raacayaa magac dhadig tusaalayaal inanka ka waa qodob lab guriga ga waa qodob lab kaabaha waa qodob lab libaaxa a'daasi waa qodob lab marka inanta wadada waa ta iyo da gabadha usha shacdaas waxa weeye afarta dambe waa dhadig yihiin ta da dha iyo sha afarta horena ee ka ga ha iyo a oo kale waxa weeye way lab yihiin waaye haddaba qodobku sidiisaba waa laba nooc waa qodob quman iyo qodob aan qumanayn oo la yidhaha ma qumane qodobka quman gelna waxa weeye sideed qodob ee aynu kor ku soo aragnay 7 waa quman yihiin oo waa ka ga ha ta da dha iyo sha kuwan dhammaan waa laba xaraf leh qodobka aan qumanayn aynu hadda jirnaa waxa weeye 8 qodob aynu kor ku soo aragnay hal baan qumanayn kaasoo ah kan oo lagu garanayo laba xaalo kow waa hal xaraf leh laba magacyo gaara ayuu raacaa waayahay qodobka aan qumanayn waa hal xaraf leh mar kasta tusaalayaal libaaxa booca luuqa kaaha waa xarafkuna waxa weeye aada weeye marka magaca dhadig ee ku dhamaada xarfahan marka magaca jaadkan ah ee ku dhamaada shibanayaasha ha iyo ha dhadig yihiin waxay qaataan qodobo hagaagsan oo laba xaraf laha markaas oo qodobku noqonayo mid quman tusaalayaal deexda boocda luuqda iyo bahda hadaag u fiirso marka magacyada xarfaha ku dhamaada dhadig yihiin waxay qaadanayaan qodob quman qodobka quman waa maxay waa laba xaraf leh magaca lab ee ku dhamaada xarfaha magacyada ku dhamaada shibanayaasha qa iyo ha ee labi ma qaataan qodobo hagaagsan tusaalayaal libaaxa raaca baaqa kaaha markaa sidaa ha loo xusnaado oo ha loo barto qodobka qumani waa laba xaraf leh waana kuwan ka ga ha ta da la iyo sha waa imse haddaba qodobada qumani imse ayaa lab
mise ayaa dhadig qodobada qumani waa isku 7 3 lab iyo 4 dhadig 3 lab waxa weeye waa ka ga ha 4 dhadig waxa weeye ta da la sha way muraajacada mumkin intee waa muraajac noqonaysaa waxa noqonaysaa jinsiga qodobka jinsiga magacu wuxuu ku xiran yahay hadba qodobka uu wato haddii mid labi raaco magacu waa lab yahay haddii se mid dhadig raaco magacu waa dhadig yahay qaacidadaasaan la xafidaya shaxankan halkan ku sawiran waxaad arkaysaa qodobadii baa madaxa sare ku yaala waa ka ga ha ta da la sha iyo a marka waxa magacyada ku dhamaada xarfahan aad arkaysid ee hoosta ku wada yaala mid walba waxa weeye waxa ka soo qaadaa imika roobka oo kale laag oo kale marka waxa weeye waxay ku tusaysaa xarfaha ku dhamaada magacyada ku dhamaada xarfaha halkan ku muujisan waxay qaadan doonaan qodobada noocaasa ka qura ee sharciga jabinaya waxa weeye ereyga geel oo qaadan doona geela marka waa kaas ku jira wadi arkaya marka waxaan ha mishan qa ha halkan galeen marka waxa ku soo biiraya dhaada laakiin dhaadu waa laba xaraf laakiin halkan ma ku daranaa imika oo waxa weeyaan lama qori karo laba dha almuhim waxa weeye qodobadaas magacyadaas ay ku dhamaadaan magacyada ku dhamaada xarfahaas qodobadaasay qaadanayaan shaxdaas laga eegayaa oo ku tijaabinaysaa